bismillaahi raxmaani raxiim soo dhawaada saaxiibayaal meel kastoo aad joogtaan kusoo dhawaada barnaamijka falanqaynta caalamka oo xiliyadan oo kale aad ka daawataan maracadda show wararkii ugu dambeeyay dalka Yemen ciidamada Sacuudiga uu taageero horumarka ugu dambeeyay ay sameeyeen halkee ayuu ka baxay Idris Az-Zubaydi ninkii aan macluumaadkiisa idin la wadaagnay 8 maalin ka hor oo ahaa gudoomiye degmo laakiin markii dambe xilal kala duwan qabtay kana mid ahaa dawladda caalamka oo aqoonsan yahay laakiin markii dambena dhinaca kale u baxay sidee ayuu ku yimid ilaa Berbera ilaa Muqdisho macluumaadka laga qoray ayaan kula wadaagi doonaa iyo sida uu ku tagay magaalada Abu Dhabi oo dalkiisu tagay Imaaraadka Carabta macluumaad kooban oo ninka ku saabsan waan kula wadaagi doonaa waxa raaci doona magaalooyinka istiraatiijiga ee laga qabsaday saacadii la soo dhaafay Sacuudiga ma wuxuu 10 maalin ku soo gabagabeeyay wixii 10 sano la dhisay waxaan eegi doonaa deegaanada gacanta lagu dhigay ciidanka dawladda dhexdooda xitaa sida u kala qaybsan yihiin oo aysan u mideysneen si gaar ahaaneed ayaan kugula wadaagi doonaa insha Allah taala waxaan kaloo aan falanqayn doonaa macluumaad ku saabsan dooni ay dad Soomaaliyeed ay leeyihiin ayaa toddobaad ku dhawaad waxa lagu haystaa gudaha dalka Yemen waa la afduubtay laba qiso oo cajiib ah oo doonidaasi ku dhex jira ayaan kula wadaagi doonaa oo ah qaabka loo afduubtay iyo doonidaasi waxay sido oo ay dadka Soomaaliyeed ee ganacsatada ah ka soo iibinayaan ama ka iibkeenayaan gudaha dalka Yemen oo ka yaabin karaya soo dhawaada waxa raaci doona gudaha dalka Iran wararkii ugu dambeeyay golaha amniga qaranka ee dalkaasi go'aan kama dambaysa ay qaateen sida dalka loo difaacayo banaabaxyadii way xoogeysteen sargaal booliis ah ayaa xitaa midil lagu dilay ama toorey sida aad u taqaano macluumaadkii ugu dambeeyay banaabaxyada iyo macluumaadyada kale ee caalamka ugu waaweyn ee soo kordhay oo Ruush kale oo Syria leh oo Israa'iil leh oo gobolka oo idil ah ayaan sidoo kale kula wadaagi doonaa insha Allah taala soo dhawaada saaxiibayaal aad baad u mahadsantahay wararku aad bay u badan yihiin waxaan isku dayaa qayb kasta inaan soo koobo si aan xogta kama dambaysta u ogaano insha Allah taala soo dhawaada mar kale kamid noqon saaxiibadeena aad baad u mahadsantahay dalka Yemen waxa ka soconaya dagaal aad u adag waxaad muddaa marxaladda dhinaca kale inay u weecatay ciidanka Sacuudiga uu taageersan yahay deegaano dhowr ah iyo magaalooyin muhiim oo istiraatiiji ah ay gacanta ay ku dhigeen sida magaalada Daalica lagu magacaabo oo ah halkii Idris Az-Zubaydi uu ku dhashay Idris Az-Zubaydi waa ninka hogaaminaya kooxda STC la yiraahdo ee gooni-goosadka ee doonaya inuu dal madax bannaan oo koonfurta Yemen la yiraahdo uu ka sameeyo gudaha dalkaasi isagoo taageero dhanka dibadda helayo Idris markii hore wuxuu kamid ahaa nidaamka dawladeed ee caalamku aqoonsan yahay oo wax wada qaybsi ama awood wada qaybsi ayuu halkaasi ku joogay laakiin markii dambe gooni ayuu u baxay STC ayuu sameeyay Imaaraadka ayuu taageerada ugu badan uu ka helayay maalmihii ugu dambeeyay marka dagaalada Yemen ka dhacay xaalad waxaad muddaa dhinaca kale inay wax u weecdeen oo ciidankii dawladda Yemen ee Sacuudiga uu taageersanaa ayaa deegaano badan gacanta ku dhigay istiraatiijiyad ahaan waxay qabsadeen goobii ugu muhiimsanaa oo ciidamada STC ay ku sugnaayeen waxa ugu dambeysay magaalada Cadan oo ay la wareegeen qaybo badan oo kamid ah iyaga iyo ciidan kale oo qabaa'ilka ah oo abaabulan haddaba Idris Az-Zubaydi shalay gabi ahaanba waa la waayay halkii jaan ay cirab uu dhigay ayaa la isweydiinayay sidee Yemen uu kaga soo baxay Berbera uu ku yimid Muqdisho uu ku tagay kadibna uu ku tagay dalka soo tagay Imaaraadka Carabta si kooban aan kula wadaago sida laga soo xigtay isbahaysiga dalkaasi Yemen Idris Az-Zubaydi waxa la sheegay in dooni uu soo raacay xilli uu ku sugnaa dekedda magaalada Cadan oo dalkaasi Yemen xilli habeen ayuu doontaasi soo raacay sida wararku ay sheegayaan doonida waxa ka dulbabanaya calanka jasiirad yar oo ka tirsan jasiiradaha badweynta Atlantic ku yaalo oo Kitts and Nevis la yiraahdo jasiiradan ilaa 50 kun oo ruux ayaa la sheegay inay ku nool yihiin Ingiriiska ayaana ama luqadda Ingiriisiga ayaana looga hadlaa doonidan ayaa la sheegay marka inuu soo raacay waxa ay ku soo xiratay sida wararku ay sheegayaan magaalada Berbera markii uu Berbera yimidna waxa la sheegay inuu xiriir la sameeyay mid ka mid ah saraakiisha ciidanka Sultanka Imaaraadka Carabta ee dhanka gobolka ee howlgalka Joint Operation la yiraahdo ee qaabilsan waliba mas'uulka ugu sareeyo markii uu la xiriiray telefoonka ay ku wada hadleen xitaa iyo codka ay ku wada hadleen waxa soo bandhigay warbaahinta Al-Arabiya iyo Al-Hadath oo Sacuudiga laga leeyahay markaasi kadib waxa la sheegay inuu xiriir helay diyaarad ayaa la sheegay inay ka soo qaaday magaalada Berbera waxaana ay geysay magaalada Muqdisho oo caasimadda Soomaaliya ah intaas wixii ka dambeeyay muddo hal saaca ayaa la sheegay inuu ku xiriirnaa ama uu joogay garoon diyaaradeedka magaalada Muqdisho diyaarad gaar ah ayaa loo soo diray kadibna waxa loo qaaday gudaha dalka Sultanka Imaaraadka Carabta sida warbaahintu ay baahinayso sida wararku ay sheegayaan marka diyaaradaha militariga iyo kuwa caadiga ah ayaa loo adeegsaday socdaalkiisa markii doonta uu ku yimid xeebaha Somaliland ama magaalada Berbera kadibna halkaas ayaa la sheegay inuu ka gudbay
ninkan wuxuu hore uga tirsanaa saraakiishii ciidanka, wuxuu ahaa nin sargaal ah. 80meeyadii 90meeyadii ayaa la sheegaa inuu xitaa kooxo abaabuli jiray. waa nin aad yacni ugu dheereeya abaabulka kooxaha iyo in ay ka soo horjeestaan ama ay mucaaradaan hadba nidaamka dawladeed ee ka jira gudaha dalka Yemen. waxa lala waayay laba saaxiib oo sidoo kale isaga uu la kulmay saacadii ugu dambeeyay oo Ahmed Hamad Lamilis iyo Muhsin Alwali lagu magacaabo. labadoodaas marka halkay ku dambeeyeen ilaa iminka lama oga, laakiin isaga waxa la sheegay inuu soo baxsaday kadibna uu diyaarad ka raacay magaalada Muqdisho, sidaas inuu ku tagay dalka Sultanka Imaaraadka Carabta. sida loo fududeeyay iyo sida xaaladdu ay ahayd macluumaad badan lagama hayo. marka taa laga yimaado, ciidamada dawladda Yemen waxay u muuqanayaan inay iyagana isballaarinayaan, deegaano badan gacanta ay ku dhigayaan. mar haddii magaaladii uu ku dhashay Daalica laga qabsaday, istaraatiijina u ahayd ciidankii STC, waxay ka dhigan tahay marka in laga guuleystay ciidamada STC oo deegaanada ugu badan ay qabsanayaan ciidanka ee dawladda Yemen iyo ciidamada kale ee Sacuudiga uu taageerayo ayaa aad u kordhay. magaalada Daalica marka la eegana sidaan xalay idin la wadaagay, waa magaalo istaraatiiji ah oo koonfurta iyo waqooyiga Yemen waa meel u dhaxayso. waa saldhigii ugu weynaa ee ciidamada STC ay ku xooganaayeen oo Imaaraadka uu taageerayay. waxaad arkaysaa muuqaalada markaad eegto gudaha dalka Yemen marka ee barta Twitter-ka ah, gawaari aad u tiro badan, ciidan hubeysan, aad loo qalabeeyo, kuwaas oo aad moodo inay u diyaar garoobayaan qabsashada deegaano kale oo gudaha dalka Yemen ah. marka aad eegto marka marxaladahan Yemen ka jira, waxay dhibaato u geysteen ganacsato Soomaaliyeed iyo dad Soomaaliyeed. maxaa dhacay toddobaadkan? dooni lagu magacaabo Sultana 2 oo ah doomaha yacni aadka u dheereeyo 4 saac ilaa 4 saac bar ay ku qaadato in Yemen iyo Boosaaso isaga kala gudbaan, oo ganacsiga inta badan lagu kala gudbin jiray labada dhinac, ayaa lagu waramayaa in gacanta lagu dhigay oo ay afduubteen kooxo hubeysan oo ka faa'iideystay isbedelka ama qalalaasaha ka jira gudaha dalka Yemen. inta badan waxay ku xiran jirtay magaalada Mukalla iyo sidoo kale magaalada Boosaaso. labada dhinac ay ganacsiga waxyaabaha yacni muhiimka ah ay isugu kala gudbin jirtay. qisada ku saabsan marka qaabka doonida loo afduubtay aan kula wadaago. doonidan waxaa afduubtay nin Yemeni ah oo gobolka Shabwa la yiraahdo ka soo jeeda. ninkan marka Yemeniga ah oo lagu magacaabo Askar Vais Ahmed wuxuu xiriir ganacsi uu kala dhaxeeyay ganacsado kale oo Maxamed aan magaciisa ku koobnay, kaas oo ku sugnaa gudaha Puntland. ninka Yemeniga ah marka ee Askar lagu magacaabo waxa uu ka xanaaqay ama uu ka carooday markii ruuxa Maxamed ah ee ganacsiga uu ka dhaxeeyay xogaa istawamarin uu sameeyay waa ruuxa Soomaaliga ah. Yemen ganacsi laga soo qaaday oo la keenay deegaanada Puntland ayaa xogaa dhaqaalihii la doonayay in dib loo celiyo, maadaama ganacsatada ay wax kala weydaarsadaan. inta badan la sheegay inaan ruuxii Yemeniga ah dib loo celin. kadibna waxa uu yimid deegaanada Puntland ninkii Yemeniga ahaa si uu lacagtiisa u raadiyo, dadkii ganacsiga uu kala dhaxeeyana oo baadi goobo. muddadaasi waxaa ku soo aaday baa liiray dagaalkii u dhaxeeyay Puntland iyo sidoo kale Daesh. halkaas xogaa qalalaasa ayaa ka yimid. ruuxii Yemeniga ahna waxaa la sheegay in lagu xiray Puntland. markii dambe waa la sii daayay, dadaal badan oo la bixiyay kadib eedeymihii loo jeediyay oo la sheegay inay been abuur ay noqdeen, oo xitaa Imaaraadka Carabta ayaa sheekadan ku lug yeeshay oo baaritaan ku sameeyay. markii dambe xitaa madaxweynaha Puntland ayaa sheekada gaartay, ninkii waa la sii daayay. ninkii markii la daayay oo ku laabtay dalka Yemen, gaar ahaan gobolkiisii uu ka soo jeeday ee Shabwa iyo deegaanadii kale ee ganacsiga ahaa, maadaama nidaamkii STC deegaanadaas ay ku xooganaayeen wax dhibaato ama uusan geysan. laakiin markii wax walba ay isbedeleen oo dagaaladan hadda ay bilowdeen, faaruqii dhanka maamulka ee yimid ayuu ka faa'iideystay. doonidan oo Sultana 2 lagu magacaabo oo ku xirnayd dekada Mukalla ayaa markii ay soo dhaqaaqday waxa la sheegay ninkan inuu laashash kale ama doomo kale uu soo kaxaystay, doonidana uu afduubtay. sheekada afduubka sidaas ay ku dhacday oo aad moodo xogaa waxyaabihii uu ka caraysnaa ninkan inuu yacni kaga argudanayay iyo dhaqaale uu sheegay weli inuu ka maqan yahay oo dhankii ganacsigii hore oo uu kaga maqan yahay. taasi marka waxay keentay in doonida oo ay la socdeen dad Soomaaliyeed markii dambe maalmo kadib doonta laga soo dejiyo dadka lana sii daayo. sida sawirada aad ka arki karaysaan, meel dhexe ayay doonta joogtaa oo ay gacanta ku hayaan gobolkan Shabwa, maadaama ninkan reerkiisa halkaas ay ku xoogayeen, halkaas ayaana uu tagay. wixii markaasi ka dambeeyay gorgortan ayaa bilowday oo ganacsato Soomaaliyeed oo Puntland ka soo jeeda ay dadaal badan ay ku bixiyeen, maadaama markii hore la wada ganacsan jiray. marka laga yimaado marka qaabka cajiibka ee doonidani loo afduubtay, dadaal badan ayaa hadda soconayo. 90,000 iyo waxyaabaha la midka ayaa markii hore la isku ogaa, laakiin hadda 120,000 ayaa lagu waramayaa inuu ninkan doonayo in lagu xalliyo lacagtiisiina loo celiyo kadibna doonta uu fasaxayo.
laakiin doonta 70 qof ee saarnaa marka laga yimaado waxa saaran ganacsi qiimihiisu aad u badan yahay ugu yaraan waxa saaran ukun ama beed ama naalo sidaad u taqaano laga soo qaadayo dalka Yemen oo la keenayo Puntland kadibna loo iibgeynayo deegaanada kala duwan ee Soomaalida sidoo kale waxa saaran daawo qiimaheeda ilaa $50,000 lagu qiyaasay waxa saaran ganacsi kale waxa saaran xitaa sida la sheegay basal la doonayo in loo iibgeeyo ilaa deegaanada koonfurta Soomaaliya ilaa la doonayo in loo iibgeeyo gobolka Shabeellaha Hoose si gaar ahaan magaalada Afgooye doonta maxaa saaran marka doontan waxa saaran sida xogta iyo wararka aan ku helayno ukun beed ama naalo sidaad u taqaano timirta qalabka dhanka badda oo shabaagta iyo waxyaabaha kale ay ka mid ka yihiin iyo ganacsi yaryar oo ay inta badan ay leeyihiin dumar u badan deegaanada Puntland oo ilaa 200 qof gaaraya ayaa lagu waramayaa inay doonta ay u rarneed taasoo ka dhigan marka in dadkan ganacsatada ah ee gobolka ku sugan ee danyarta waxooda intay isku darsadeen ay marba dhinac Yemen yani wixii ay ka heli karayaan ay ka soo iibsanayeen si ugu sii iibgeeyaan deegaanada ay ku sugan yihiin marka waxay ka dhigan tahay qof iyo kartoon yani meesha waxa saaran waxa dareemi kartaa inay yihiin agab aad u tiro badan oo dhaqaale badan ah oo dad aad u tiro badan ay lahaayeen oo ganacsato ah taasoo ka dhigan haddii muddo kale halkaasi doonta lagu sii hayo inay wax badan ay qasaari karayaan waxaana wanaagsan in si wada jira loogu kaco doontan iyo sidii loo sii deyn lahaa gaar ahaan mas'uuliyiinta Puntland iyo sidoo kale dadka ganacsatada ah ee ileedka ee waxgaradka ah hadda xitaa xogaan ilaa waxay sheegayaan in qaar kamid ah dadkii lagu tuunsanaa inay ninkan Yemeniga ah ee lacagta ka qaateen in lala xisaabtamayo oo la soo qabtay laakiin maxaa cashir ah oo aan ka baran karnaa doontan maxaa cashir oo ka baran karnaa waana maxay marka ganacsiga sidaani oo kala wadada aan kaga maarmi karayno hadii aan nahay dad Soomaaliyeed tusaalaha kugu filan wuxuu yahay marka hadii dal kale ka waran isku dhacdaan oo dal weyn ah oo ganacsigu idinka dhaxeeyay oo sidaani oo kale idinku dhacdo ama la kala jarto ganacsiga maxaa dhici karaya waxay la yaab marka waxyaabaha Yemen laga keenayo Yemen oo dagaal ku jirtay sanadihii la soo dhaafay waxyaabaha qaar wili way ku wanaagsan in daawado kale ay soo saaraan way ku wanaagsan oo iyaga ayaa daawo sameeysta laakiin anaga heerkaas ma gaarnay dhanka korontada ayaa aad looga qayliyaa marka laga hadlayo warshadaha sidaas u waaweyn ee wax soo saarka intaas la egle maadaama korontada Soomaaliya ay qaali ay tahay meelaha qaar ay tahay raqiis waxaan u maleynayaa Berbera inay tahay meesha ugu raqiisan mise waa magaalooyin kale 0.2 meelaha ayaa lagu dhiftaa sidan qiyaasayo aan ku ogaa hadii aanay wax sii bedelin magaalada ay ku sugan tahay si aan u ogaano qiimaha korontada laga qaadana waa imisa ama lagu dhifto halka kilowatt si aan u ogaano magaalada ugu qiimaha jaban dhanka korontada geeyiga Soomaalida marka laga hadlayo marka taa laga yimaado waxyaabaha kale ee cajiibka waxa qayb ka ah in ganacsatada Soomaaliyeed ee waxyaabihii xoolaha ay cuni lahaayeen ama calafka ama ma aragtay hada galeyda laga bixiyo ama buunshada sidaad u taqaanaba in laga keenayo dalka Yemen halkaas laga iib keenayo oo xoolihii koonfurta Soomaaliya jooga ama deegaanada Soomaalida joogay loo keenayo wixii ay cuni lahaayeen taa badalkeeda Soomaalida waxay ka fariisteen wax beerashadii oo waxay meel yar ku sugayaan kiish bura ama kiish sokor oo laga yaabo xitaa waqtigoodii inuu dhacay in la siiyo balka waran marka calafkii xoolaha ay cuni lahaayeen in lagaga keenay dalka Yemen iyagoo dhul beereedka intaas la eg uu ku yaalo geeyiga Soomaalida oo xitaa wax walba lagu sameyn karayo taas oo ka dhigan in nolosheenii waxyaabaha aasaasiga u ahaa gabi ahaan aan dayacnay basal laga keenayo dalka Yemen iyo waxyaabaha mararka qaarkii geeyiga Soomaalida lagu abuuri karayo oo laga keenayo dalalka dariska ama xitaa mararka qaarkii meel aad uga fog geeyiga Soomaalida marka insha Allah taala aan u duceyno dadkeena inuu aqligooda Ilaahay soo celiyo oo dalkooda ay maal gashadaan maadaama dhaqaale intaas la eg bay hayaan ganacsi ay ku bixinayaan uga qiimo jaban uga fudud waqtiga marka laga hadlayo sidoo kalena dhaqsi ay ku heli karayaan ama ay ku beeran karayaan sidoo kalena aan u duceyno ganacsatada Soomaaliyeed ee dhaqaalaha intaas la eg uu kaga maqan yahay doontan dadaal badan ayaa hadda soconaya iyo wada hadal xubno badan ayaana door weyn ka ciyaaraya oo ganacsatay u badan yihiin sidii deyntaasi loo sii deyn lahaa laakiin waxaad ogaataa tani waa tusaalaha ugu yar oo dal yani xiriir intaas la eg oo ganacsi intaas la eg uu kala dhaxeeyo marka la isqabto waa waxyaabaha ka dhalan karaya waana in la isku tashado dadka Soomaaliyeed oo ay ka fakaraan mustaqbalkooda dhanka ganacsiga iyo noloshoodaba aanu duceyno doontaasi iyo ganacsatada Soomaaliyeed ee dhaqaalaha intaas la eg uu kaga xiriiran yahay wax walba oo ka soo kordhay Yemen oo kula wadaagi doona insha Allah markaan aan eegno dalka Iran golaha amniga qaranka ee dawladda Iran waxa lagu waramayaa kulan inay yeesheen kulankaas ayaa waxa diiradda lagu saaray in laga hortago qatar kasta oo dhanka amniga ah
oo ay la kulmi karayaan Iiraaniyiinta kadib markii kulan ay yeesheen waxay shaaci ka qaadeen in ay